ciidamada booliiska magaalada Dhuusamareeb oo kaashanaya shacabka caasimadda ayaa fashiliyay qarax macmal ah oo la geliyay dhabarka dambe ee saldhigga booliiska. qaraxan oo ahaa nooca taleefanada laga hago ayaa lagu diyaariyay koombo waxaana kala furay ciidamada miinabaarka ee booliiska Galmudug kuwaasi oo ka hortagay in walxahan qarxa ay waxyeello ka soo gaadho dadka shacabka ah. taliyaha booliiska magaalada Dhuusamareeb Dhamme Nuur Cilmi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha saldhigga ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay wadaan baaritaano la xiriira qaraxan waxaana uu xusay inay jiraan dad loo soo xiray tuhno la xiriira diyaarinta qaraxan kuwaasi oo su'aalo lagu weydiinayo laanta baarista dambiyada ee booliiska. saakay abaaro 4 saac waxay nala soo wadaageen ila waraadiyo deegaanka ka howlgala oo ah dad shacab ah waxyaabaha qarxa ee argagixisadu ay uga faa'iideysato mar walba gumaadka ummadda Soomaaliyeed taasoo loo yaqaan qaraxa gacan ku samayska mobilka iyo baalkii muxuu ahaa baaruudda ka kooban iyo waxyaabaha qaraxa sida dhigaha fudud u qarxa markii nala sheegay runtii sidii ay ahaydba waan ka howlgalnay waxaan sameynay inaan marka hore safe area ka dhigno aagii oo aan ka kaxayno ka dheerayno bulshadii markaan xirna kadibna waxaan u dalabnay dadkii u tababaray ka tirsanaa ciidanka booliiska runtii ilaahay waa mahad iskale oo ku guuleysanay inaan ka hortagno barnaamijkaas oo aan soo furfurno waxyaabihii laga soo furfurayna dee waa arki doontiin haddii aan la idmo waxaa ka arki doontiin websaydyada ama baraha bulshada oo aan soo gelino runtii barnaamijkaas sidii loogu talagalay aan ugu guuleysanay ilaahayna wax laguma yeelin wayna ku fashilmeen kooxihii meesha soo dhigay waxaana leeyahay mar walba sidaas ugu fashilmi doontiin waana markii labaad oo ay isku dayaan barnaamijkaas annagana aan runtii ka hortag ku samayno iyadoo aan wax dhiba inaba la ekaatay bulshadana ka soo gaarin ciidamadana ka soo gaarin runtii tii horena baarisaa socota dad loo xiray baarisaa socota tii dambana waan ku daba jirnaa insha Allah waan rajeynayaa inaan ku guuleysan doono qof walba oo barnaamijkaas oo kale isku daya inuu sameeyo waxaan rabaa inaan kula dardaarmo dhammaan bulshada reer caasimadda Dhuusamareeb inay ka qayb qaataan mar walba ka hortagga dhibaatooyinka lala damacsan yahay iyaga oo runtii aan la garan karin cid ay ula dan leeyihiin iyo cid ay wadaan midna aysan target u ahayn dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka deegaanada ay mar walba la beegsadaan dhibaatooyinka inaan isku mid ka noqono oo ka wada hortagno oo maanta qalqal iyo dhibaato uma baahnin koox jabtay inay annaga nala soo aadaan waxyaabo aan runtii suuragal ka ahayn deegaanadan iyo shaqada aan hayno midna in looga dhex faa'iideysto ay isku dayaan inaan aqbalno maaha mana aqbali doono haddii aanan helin shacab aan iskaashano oo aan annagana si dhiga fudud uga howlgalno meelaheena ugu yeeraan ayagana na soo wargaliya haddaan helin runtii waxba noo hirgeli maayaan ciidanka booliiska caasimadda ayagana waxaan kula dardaarmayaa inay mar walba u dhiga fududaadaan shacabka oo aysan fududaysanin waxyaabaha shacabku u soo sheegayaan ee ay uga hortagaan sida ay tahay goobaha laga arkana mar walba laga foojignaado oo laga badbaadiyo bulshada waxyaabaha noocaas oo kala ciidamada amniga ee booliiska iyo nabad sugidda ee ka howlgala caasimadda ayaa heegan ugu jira bilihii u dambeeyay sugidda amniga caasimadda kuwaasi oo maalmo isxiga ku guuleystay inay fashiliyaan qaraxyo lala maaganaa in lagu waxyeeleeyo shacabka caasimadda 26 bishii hore ayay ahayd markii ciidanka NISA ay gacanta ku dhigeen qarax la geliyay mid ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan magaalada Dhuusamareeb kaasi oo nabadiidku la maaganaa shacabka caasimadda balse iskaashiga laamaha amniga iyo shacabka ayaa suuro geliyay in isku dayada argagixisadu noqdaan kuwa si isdaba joog ah u fashilma. Cabdullaahi Warsamo Roble warbaahinta ciidamada qalabka sida Dhuusamareeb.